dhici karta laakiin waxaan ciyaar ku galay ma aha soo aad garmays waxaan ciyaar uga soo noqonayana ma aha Somaliland jiritaankeedu waxagaag professorkaas aad noo sheegtay oo Cambridge wax ka dhigay wuxuu bedelay dhaqaalihii iyo nidaamka uu shaqeynayay bedelay ujeed su'aasheedu dhaqaalo shaqo kuma lahayn si fiican inaad fahanteen oo jeclahay mana uusan oranin England iyo maxaa la dhahaa Ingiriiska Scotland iyo Ireland iyo maxaa la yiraahdaa Wales iyo xaka la go'aan midba gooniha u go'damo sanayn dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay nidaamkii ku shaqeynayay bedelay shaqo kuma lahan su'aashan ku weydiiyay su'aasheedu waxay ahayd waxaad gadatay ama iibsatay ama sabadashay asaaskii noloshaada waxa qayb weyn ka ahaa oo ahaa Soomaalinimo aad 30 sano nagu wacdinaysay adduunka dhan u sheegaysay oo umada aad u sheegaysay haddii kaas aad iibsan kartid ama kaas aad bedeli kartid professorku muxuu kale u bedeli karaa that is the question aniga su'aasheedii jawaabteedii aniga ma fahmin adoo raaliga ah waxaan ku yidhi Keynes noloshiisa wuxuu yahay ya fundamental oo hadda taariikhdiisa hadda fundamental oo soo deganmays dagaalka lagu soo qaadana markuu tabdiisha keenana ilaa maanta dagaalkaasi wuu socdaa almost 60 years 70 years later wuu socdaa anu waxaan ka hadlayaa whatever principle waa aqeedada hoose waxaad aaminsan tahay markay bedelmayso soo aad garmayso in a simple sense anigu Soomaalinimo kamaan tagin baan ku kamaan khalinta tawaad su'aashaada dib u dhageysa anu Soomaalinimo kamaan tagin islaamnimo kamaan tagin waxaan ka tagay siyaasadda Soomaalidu ay ku wada dhaqmaysay ee jamhuuriyadda Soomaalida wixii la oran jiray sida ay ahayd xukumi jirtay baan ka tagay jamhuuriyadda Soomaalida wixii la oran jiray maxaa la maysan jamhuuriyadda Soomaaliya adduunka u aqoonsanayn wali anigu jamhuuriyadda Somaliland baan aqoonsanahay right soo degarmays marka anu taasan aaminsanahay jawaabteeduna waa taa way waa arrin fiican weeyaan isi waxa isticmaalaysaa af Soomaali aniga waa iga badaysaa 100% markaad tiraahday jamhuuriyadda Somaliland definitionka ama qeexitaanka jamhuuriyad wuxuu yahay wadan xuduud leh madax banaan adduunku intiraafsan yahay oo asoo gooli u taagan sida Soomaaliya ay tahay Uganda ay tahay Tanzania ay tahay Kenya ay tahay wadamada caalamka oo dhan taariikhda walaalkay adigoo aad iyo aad raaliga su'aalahaguna waa very important questions so I have enormous respect for this thank you wax jiray way waxaan jirin ma waa wax jira way Soomaaliya oo aan jirin tani markaad ka hadlaysay Muqdisho iyo Koonfur oo aan jirin bay Somaliland jirtay as a country hadda su'aasha dabaysday soo degarmayst more than 30 countries baa aqoonsanaa Somaliland inay wadan cusub oo xorriyad qaatay ay tahay soo degarmayst xuduud bay lahayd soo degarmayst caalanka Soomaalida ee maanta xamar yaala ee buluuga ee xidigtu ku shaabadaysan tahayna 5 gees buu leeyahay shantaa gees shan wadan maaha gobollo wadan kale ka tirsan 5 wadan ayay ahaayeen 5 wadan Somaliland mid bay ka mid ahayd Soomaaliyana mid bay ka mid ahayd saddexdii kalena waa kuwa iska tagay soo degarmays Somaliland shaqo goonihi kama saarna in la isku hayo Soomaali shaqo goonihi kama saarna taasi waa wax loo siman yahay way soo degarmays maalinta la weydiiyo waan hadal baan ka jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay hadaan nahay reer Somaliland caalankaas ka marxaatay inaan wadan gooni ahayn caalankaas ka marxaatay maxaan ku raahay in adduunyada aqoonsanay wadan gooni caalankan buluuga marka waqooyiga laga keeno koonfurta la keenay caalan noocay bay koonfurta lahayd oo caalamku yaqaan maadaama laba wadan oo kala duwan ay ahayn on your own account xisbiga SYL caalan buu sameeyay xisbiga SYL xisbiye kale ayaa jiray Somaliland iyo maxaan ku raahay Italian Somaliya xisbiye kale ayaa jiray حسب كمان لا عالم نوعين لهاي عالم كو قنصيه جوابت مياد يسين وقتك ده واحد رال نوع بروفيسور waxaan rabaa inaan ogaado calan baan keenay baan leedahay buluug waa 5 xidigood buu leeyahay hadii adigu aad dawlad ahayd hal calan leh 5 dawladood kala duwan lahaa dawladaha kala calamadoodii calan noocay bay koonfurtu lahayd xisbi ma sheegayo xisbiye badan oo calamo la jira waqooyiga laftiisa xisbiye kala duwan ka jira waatan ku soo wada calamay kala yeelan karaan soo dawladda Soomaaliya calankii lagu yaqaanay ee koonfurta ee madax xarunta u ahayd calanku wuxuu yaqaanay markaa waxaan ku yiri hadayada si wanaagsan ii dhigay ka musay ku dhageysanaya ballan Somaliland saddex waxa jira xisbiyo waaweyn SNL
NUF USP xisbiye kala gooniyahaya community kala goongoniyahay ku jiraan anigu familygayga waxaanu ahayn NUF USP maanaan ahayn waxyaabaa dadku ay iska samaystaan dadka samaroonka wada USP maanaan ahayn NUF baanu ahayn laakiin calamin ahay dowlad miinaan ahayn hadday dhegeyso soo degarmaysa dowladnimo ayay saddexduba ka shaqaynayeen horta in ingiriiskii dowlad laga qaato xornimada kamay shaqaynayn in muqdisho la xoreeyo taasi shaqo kale dadkii kale u taallay shaqadii halkaa xisbiyadii kale in waddankan la xoreeyo waxay taasi ku tusaysaa inay ka gooni ahayd Somaliland Soomaaliya inay ka gooni ahayd xisbiga USP iyo xisbiga SNL iyo xisbiga NUF shaqadoodu waxay ahayd ingiriiskii in laga xoroobo marka taa la dhameeyo